xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidda oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha ka taagan gobolada bariga Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay meel halis mareysay isagoo sidoo kale bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay ka qayb qaataan samata bixinta loogu jiro dadka iyo dunyada abaarta xun ay saameysay. waa bari TV horta soo dhawaanaya abaartu waxay ka bilaabantay markii hore bariga ay ceergaaw ilaa Asqore way kala xumayd bari hadda waxay maraysaa inay xaggan iyo ood weyn iminka abaarta ay joogto abaartani waa mid sida loo bixiyay siman seelada barca maanta haddaad marto runtii argagax baa ku dilaya la wada ooysa neefkii awrka ahaa ee la siisan jiray $1,500 wuxuu marayaa $40 baynta u dhaxaysatay $1,500 buu neefka xooli seelada barco maantana $40 marka waxaan lahaa Allah isu naxariisto marka hore ummad islaamay nahay Allah isu naxariisto Allah isu gargaaro degdeg runtii hay'adaha maartay international iyo kuwa localka iyo dawladda iyo caalam islaam waxaan leeyahay aan la soo gurmado loo soo gudbo gobolada bariga abaar xun baa ka jirta waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinayaa gobolkan Togdheer waxa uu doortay xildhibaano baarlamaanka golaha wakiilada 15 bay ahaayeen 15 xildhibaan baarlamaanka waxaan lahaa war gobolkii maanta wixii la idin doortay waa maanta. Xildhibaan Mubaarak Bidda oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Waaberi waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Togdheer. Nabadgelyada gobolku aad iyo aad buu fiicantay isbedel baa ka dhacay gobolka barasaab hore ayaa laba barasaab isbedelay dhawaan oo bilba may gaarin barasaabkii hore ay kana wasiirka wasaaradda qorsheynta Maxamed Raahin waxa kale loo keenay Ramaax baysna aad la jooga oo runtii nin waayaragaysna oo gobolada ka soo shaqeeyay marka meel kasta wax ka dhacaan caalamka wax ka dhacaan laakiin guud ahaan nabadgelyada gobolku aad iyo aad buu fiicantay. ugu dambeyntiina xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidda waxa uu soo dhaweeyay wada hadalka u furmay xisbiga kulmiye iyo garabka uu hogaamiyo siyaasiga Axmed Muumin Saad oo ku taageersanay xisbiga iyo gudoomiyaha xisbiga iyo hogaankaba ee wada hadal la furan waxaan u baahanahay cid kasta oo xisbiga ku soo biirtay oo soo dhaweynaa oo arrin fiican waxa weeyaan qolada toosinta ee garabkan toosinta ee xisbiga wadani waa miisaan culus oo ku soo biiray xisbiga. أحمد سليمان عرب أحمد كافي وبري TV برعو.